Excellencies, ladies and gentlemen, Somalia as a member of this mudanayaal iyo marwooyin Soomaaliya iyada oo xubin ka ah isbahaysigan la qadariyo ayay had iyo jeer u helisay mabaadi'da madaxbannaanida midnimada dhuleed iyo faragelin la'aanta dalalka sida uu dhigayo cahdiga naam haddaba dhawaan dawladda Itoobiya ma qarsan ficiladeeda waaweyn ee qatarta ku ah naam iyo mabaadi'da asaasiga u ah nabadda iyo xasiloonida gobolka كودي جناية 2024 رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد waxa uu isafgarad sharci darro ah la saxiixday mid kamid ah madaxda dawlad goboleedyada Soomaaliya kaasi oo xadgudub ku ah madax banaanida dhuleed ee dalkeena isafgaradkan waxa uu Itoobiya u ogolaanayaa inay galaan xeebaheena oo ay si cad ugu xadgudbaan qarannimada dalkeena shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah haddaba waxaan mar kale ku celinayaa inay Soomaaliya diyaar u tahay inay ka qayb gasho wada hadallo loo dhan yahay heshiisyo ganacsi oo faa'iido u leh labada dhinac isla markaana waafaqsan qaanuunka caalamiga ah waxaa jira fursado badan gobolka iyo caalamkaba sida hindisaha geeska Afrika iyo kan istiraatiijiyadda badda cas ee IGAD waxa ay bixinayaan fursado dhab ah iyo iskaashiyo ilbaxnimo leh sida midka ka dhaxeeya dalkan Uganda oo aan bad lahayn iyo dalka Kenya si kastaba ha ahaatee ma jirto cid isku dayi karta inay bixiso dhul Soomaaliyeed aniga oo ah madaxweynaha Soomaaliya ama madaxda dawlad goboleedyada sida Muuse Biixi oo kale wana sharci darro aysan dadka Soomaaliyeed aqbali doonin marnaba cawaaqib xumada ka dhalan karta isafgaradkan waa wax aad looga xumaado mana ahan kaliya mid qatar ku ah madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya ee sidoo kale waxa uu halis ku yahay xasiloonida gobolka isaga oo fursad siinaya argagixisada ma ogolaan karno in argagixisada loo faa'iideeyo waqtigan lagu jiro dabargoynteeda tani waxa ay meesha ka saaraysaa dadaaladii iyo horumaradii ay Soomaaliya ku tallaabsatay muddooyinkii u dambeeyay oo ay ku jiraan horumarada la taaban karo ee horumarinta maamulka dhaqaalaha iyo amniga sida lagu aasaasay xubnaha naam Soomaaliya waxa ay leedahay taariikh weyn oo uga qayb qaadatay faa'iidada heer gobol waxaan hadda eegaynaa dhaqdhaqaaqyada socda waxaynu ilaalinaynaa nabadda iyo iskaashiga gobolka waxaynu ku taagnaanaynaa diidmadeena ka dhanka ah xadgudubyada Itoobiya ee sharciyada caalamiga ah waxaan kula talinayaa golahan inay mowqif adag ka istaagaan ilaalinta midnimada geyga Soomaaliya iyo madax banaanida dalkeena si aynu u qaadno tallaabooyin wada jira oo lagu ixtiraamayo sharciyada caalamiga ah iyo xeerarka muhiimka u ah hubinta nabadda iyo joogteynta xasiloonida gobolka xilliyadan adag waad ku mahadsantihiin taageeradiina hagar la'aan iyo wada jirka aad muujiseen tani waxa ilaalin kartaa mabaadi'da isbahaysigan waxayna xaqiijin kartaa adduun cadaalad badan oo nabad ah mahadsanidin I thank you.